iyadoo ay curutay bisha barakaysan ee Ramadaan isla markaasna ay wali wado hay'adda Amoud Foundation barnaamijka sanadlaha ah ee 2 million meals oo lagu qoodiyo dadka danyarta ayaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo deeq raashin oo ka kooban sonkor, daqiiq, timir iyo saliid ay gaarsiisay hay'adda Amoud Foundation 500 qoys oo danyar oo ku nool magaalada Burco. goobta deeqda raashinka lagu qaybiyay waxa goobjoog ka ahaa maamulka degmada Burco iyo mas'uuliyiin sarsaro ka tirsan hay'adda Amoud Foundation. ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay Xaaji Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah xiriiriyaha hay'adda Amoud Foundation ee Geeska Afrika waxaana kamid ah hadaladiisii sida tan. waxaan rabnaa insha Allah anagu Amoud Foundation inaan ku wareejino ama ay nagala qayb galaan qaybinta raashin loogu talagalay dadka baahan ee degmada oo 500 qoys ah taasoo noqotay bisha Ramadaan insha Allah taala dadka inuu noqdo waxay ku suumi karaan insha Allah taala waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dadka walaalaha ee raashinka soo bixiyay walaalahooda soo diray waxa kale oo u mahadnaqaya bahda Amoud Foundation markasta ay joogan gaar ahaan xafiiska Mareykan oo runtii iyagu waxa weeyaan si gaar ah isha ugu hayay dhibaatooyinkii iyo baahiyi kala duwan ee gobolka Togdheer mudugii ugu dambeeyay ka taagnaa taasoo ay maanta tahay qaybintii shanaad muddo 3 bilood gudahooda iyadoo isla bishan gudaheedana aan bilownay ceelashii biyaha gudoomiye waan ugu talagalnay iyagana ay noqdaan ka emergency abaaraha alxamdulillah Ilaahay subhanahu wa ta'ala raxmadii inoo lisay waxaan ka baraynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu inoo sii ziyaadiyo laakiin ceelashana waan sii wadnaa insha Allah ta'ala qaybinta raashinkana waan sii wadnaa inta aan marka gaari karno. maayirka xigeenka degmada Burco Mukhtaar Cabdi Baariyare iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco oo halkaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadnaqay hay'adda Amoud Foundation. waxaan joognaa Alamsey Stadion oo Amoud Foundation ay ku qaybinayso 500 oo qoys oo loogu talagalay dadka danyarta ah ee waqtigan hadda la taagan yahay oo waliba waqtiga ugu munaasibsanaaya dadana furadaba helaynin oo aad u jilecsan runtii ay maanta halkan kaga farxinayaan oo ay ku gudoonsiinayaan aytamiska raashinka ee halkan yaala maalmaha la bixiyo oo maalmaha ugu khayrka badan leh waxaanu leenahay waxaad bixiseen waa waqtigeedii ilaahay idinka iyo cidii kale ee wax ku soo darsatayba halka ay ka soo saareen wax khayr qaba ilaahay ha ugu bedelo. saaka subax khamiis ah taariikhdu ku beegan tahay 23 bishii Maarch 2023 aanay tahay bishii barakaysnayd ee khayrka badnayd ee Ramadaan ay maanta koowino tahay oo dadka muslimiinta guud ahaan iyo gebaha meel joogan bay tahay maalin ay xiran yihiin waxa halkan runtii aan kula suganahay hay'adda khayriga ah ee Amoud Foundation oo aanu kala wareegno 500 oo qoys oo ay ugu tala gashay inay ku afuraan bisha barakaysan ee Ramadaan aad iyo aad baan horta marka hore mas'uuliyiinta hay'adda iyo dadka muxsiniinta ay wax soo gashaday aan ugu ducaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu bedelo halkay ka soo saareen Ilaahay wax khayr qaba Ilaahay ugu bedelo runtii sida xildhibaan Farxaan ugu horeeyay sheegay ma aha markii koobaad Amoud Foundation ay Burco wax ka qaybisay gudaheeda sanadkan ugu dambeeyay waaba dhowr jeer timi dadka masaakiinta ah ee runtii danyarta ah bay garab istaag iyo gargaar ay u fidinaysay mar walba waa ugu mahad celinaynaa inay dadaalka ay dadka danyarta la garab taagan yihiin ay halka ka sii wadaan aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa ugu mahad celinaynaa. ugu dambeyntii waa markii shanaad ee hay'adda Amoud Foundation ay deeq raashin soo gaarsiiso gobolka Togdheer sanadkani aynu ku guda jirnay 2023 iyadoo sidoo kalena hay'adda Amoud Foundation ay gobolka Togdheer ka wado mashaariic horumarineed oo dhanka biyaha ah. waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Somaliland Burco.